السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا هبين عصب إيو والناس وذكرام waxaan jeclahay inaan idin dhaho sanad cusub wanaagsan waxaan soo dhaweyneynaa sanadkii oo 2017 waxaana gabagabeyneynaa sanadka oo 2016 dadka badankood markii oo sanadka cusub soo galaayo just because bani aadanka waa mashquul maalin kasta soo sanadka cusub waa layska maalin kale waaye which is true runtii is wax weyn maaha maalin kale waaye alxamdulilah hadduu ilaahay nolol nagu gaarsiiyey laakiin waxaa very important qofka inay horto maanta camal anaga hadda North America beriye waxay noo tahay sanadka cusub 6 saac wixii ka dambeeya sanadka cusub oo bilaabana so it's a really good time waqti fiican oo hadda waxa waaye in la qaato qofka horta oo dib naftaada loogu noqdo so waxaan ka hadlaynaa saddexda qodob ee fiican inay qofka suubisa haddii awoodo si ay sanadka u xirtay sanad cusub u bilaado midda ugu koobaadna waxa waaye reflection lahaa so reflection macnaheeda waxa waaye qofka inay dib ugu noqoto horta ee nafteeda la fariisata ee Janice inay fiiriso sanadkii oo hadda soo dhamaaday 365 beri aan soo dhameynay 365 beri cusub bilaabanayaan lix saac wixii ka dambeeyay so maxaan soo sameeyay horta maxaan faa'iideeyay nafteeda maxaan u taray dadka maxaan u taray maxaan ku fiicnaa maxaan fiicnay oo maxaan ku guuleystay maxaa ii suurtagali waayay maxaa igu suurtagali waayay waxaaseeto waxa miyaa wax oo dhinac ilaahay ka socdo qadar Allah ma shaa facal and of course raali inaan ku noqono waa wixii dhinac ilaahay ka imaado wax kasta oo ilaahay naga celiyo faa'iido iyo khayr waaye laakiin waxaa jirto waxyaabaha maybe dadaal daro hadday ahayd oo waxaan kugu toosi waayay because adima dadaalin marka maxaa sameyn kartaa sanadka soo socdo beriga wixii ka bilowdo si aad u bedeshid so reflection is very important inay horta naftiisa la fadhiisato runta hadii la sheego dadka waxa la dhahaa si oo qofka ay caafimaad iyo healthy ay u ahaato ina maalin kasto habeenkii aakhirkiisa reflection suubisid nin oo saxaabo ah jira oo dhahay oo rasuulka kaleey salaatu wasalaam oo dhahay ninkan ay ahlul janna waay ee dadka dhan ahaan ninkan ay muxuu naga duwan yahay anaka ka salaad badan anaka ka soon badan anaka like habeenkii wuxuu sameey jiray ugu dambe markuu seexanayo dadku cafi jiray okay so da macna markuu habeenka seexdo wuu fikiri jiray maanta maxaan suubiyaa ciil u qabaaya qalad iga galaya igu xad gudbe aan inta ciil i caqdad u qaan lahay wuu cafin jiray habeenkii markaas uu seexan jiray so reflection kaas ku fiican tahay habeenkiina fiirisid maanta maxaan soo qabtay horto iyo qofkii cadaawo iyo xumaan ay idin dhaxmartay inaan iska cafiyo oo la iska daayo waxa waaye aakhira ka muhiimsan wax kasta so reflection ka taas waaye midda ku xigta marka waxa waaye repent macnaheedu waxa waaye in qofka ay tooba keento sanada hadda nagu soo dhamaaday runtii qof oo perfect ah malaha kulligeena qaladan galnay dambiyaan galnay subxaanallah ilaaha oo wixii oo ilaahay waxyaabo oo ka hajira oo anaka ilaahay naga dhaxeeyay dad waxyaabo waxa jira bani aadanka dadkeena inay la ogyihiin laakiin wax oo too late la dhaho ma jiro qofka haday banooshahay maalin kasta is a new day in it's daqiiqad kasta ma waqti cusub ay Janice way qofka inay repent soo bisama inay yani tooba keento ilaahay caafimaad forgiveness ay weydiisato so it's really important hada sanadkan ay gabagabeynayno oo berito sanad cusub noo bilaabanayo inaan waqti qaadana nafteena aan la fariisana aan ku fikirno dambiyaalkii iyo qaladaadkii iyo wax kasta aan soo galnay oo marka ilaahay aan dambi dhaaf weydiisana aan tooba keeno ilaahay si oo noo cafiyo oo sanadka cusubna qeyrkiisa oo noo siiyo insha Allah bismillah mid ugu dambaysa marka waxa waaye renew Allah so renew waxa waaye qofka inay cusboonaysiin samaysato so cusboonaysiinta waxa waaye okay hadda marka reflection soo bisaan naftada dib u fiirisay iyo waxyaabihii oo ilaahay ku fududeeyay oo ku tooseen iyo waxyaabihii ku toosi waayeen iyo maxay ku toosi waayeen fiirisay and then mid labaad repent ay soo bisay oo ilaahay tooba keenay soo bisay ilaahay inuu ku cafiya dalbatay oo ilaahay weydiisatay inuu ku cafiyo dambigaaga oo insha Allah yani jidka tariiqda mustaqiimka oo jidka toosan kugu toosiyo an midda saddexaad ina renew suubisid renew waxa way naftaada ina cusboonaysiisid naftaada ina nadiifisid it's like cleanser waaye oo waxa sanadka cusub ku fiirisid waji oo hope leh iyo rajo iyo farxad iyo inuu ilaahay yani sanad cusubna gaarsiiye oo ilaahay ka filatid khayr wax kasta oo sanadkan cusub oo ku imaado inuu khayr min cindi rabbina oo yahay adigana waxyaabaha bad habit-kaaga bedeshid so maybe goal yara qoran kartaa oo maxaan bedeli karaa maxaan sameyn karaa so maybe bad habit hadaa leedahay oo masalan oo sanadka hore masalan lazy ahay that's why galaasada u baasi waaye so sanadkan waa dadaala wax barashadan ku dadaala or
qof af adagaan ahay markasta oo dadka ila hadlaan yani jawaab kululan ku siiyaa so taas camal hadday tahay okay so maybe goolkaaga wuxuu noqon karaa see afkaaga u jilcisaa because dadka inaa laga naxsada camal ma fiicna afkaaga adag dadka ka naxin karaa whether ay qofkaasi family tahay ama yani qof oo communityga ka mid tahay so afkaaga say u jilcin kartaa haddii qof oo dadka dhagaysan aad tahay inaad dhagaysanaysid and it's like maybe simple waa inaa masalan warqad yar ku qortida muraayada qolkaaga ku dhaji kartaa so subaxii markaa soo kacdeed ba okay maanta I need to inaa nice ahaado you know like maanta I need dadka inaa si jawaab fiican ah siiya and I don't have to inaa ku kululaado so gool yar yaraa samaysan kartaa oo aadi awoodid wax weyn hadda oo aadan ka bixi karin ha suubsanin because ma fiicna hadda kahor waa ka hadalne qofka markay gool dheer oma wax ku adag ee suubiso hadhow markay gaari weyso waxay noqonaysaa failure camal ama nafteeda si xun u arkaysaa so insha allah waxaan rajaynayaa sanadkaneeto inuu khayrkiisa ilaahayna siiyo shartiisa ilaahayna mootiyo insha allah anakane waxaa isku dadi dhammaan familka ama reerka wellness with Ikram waxaan isku wada dayaynaa inaa try our very best inaa barnaamij fiican idin soo gelino waxyaabaha ka faa'iidaysanaysiin barnaamijka hopefully waxaan rajaynaa inuu qof kasta oo meel kasta jooga gaaro so si oo dadka u gaarana inaa idinka gudbisiin waayo oo share dhehdiin oo subscribe ee dhehdiin si oo adduunyada dhan u gaaro insha allah ay dadkan kaga faa'iidaystaan sida idinkugu sheegay qofkii oo su-aal qabto ama wax jecel oo specific inay ka hadasho ama email aan noo soo diri kartaa at wellnesswithikram@gmail.com haddii kaleeto youtube-ka hoosa waxaa kusoo qori kartaa also facebooka wellness with Ikram on facebook haddii you can do like a personal message camal and insha allah waa arkayna waa akrinayna and waxay awoodno waa soo bandhigayna waa mahadsantihiin insha allah sanad wanaagsan iyo ismaqal dambe xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.